dhibaato badan iyo daal badan ka bacdi alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan ku sugannahay waddankayga hooyo marka ilaahay mahadiis weeyaan maanta mar haddaan aan joogno waddankaygii annagoo aan filaynin inaan ku soo noqonno ama aan helino xorriyaddan maanta aan haysanno waa mahad ilaahay weeye marka waxaan si gaara u salaamayaa cid kasta oo xorriyaddayda iyo soo noqoshadeeda anoo kala qalqaadahayn oo ma garanaysaa ka qayb qaadatay inay waddankayga dib noogu soo celiyaan magacaygu waa Ilhaan Jiino Cumar waxaa ka mid ah dhalinyarada maanta waddankooda dib loogu soo celiyey waxaan u mahad celinayaa marka koowaad Allah subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey in annagoo nabada waddankeena ku soo laabano marka labaad waxaan u mahad celinayaa dowladdeena oo gacan weyn ka geysatay inaan dib u soo laabano waxaan kaloo u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha dibadda oo iyana garab weyn naga siisay inaan waddankeena dib ugu soo laabano iyo hay'adda IOM oo iyana qayb ka ah dib u soo laabashadeena intaa ka bacdi dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waddankiina aamina taariikhda dabcan waa aragtiin markastoo lagu dhimanayaa inta guuleysatay inta ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantay waxaa badan inta dhimatay inta dhaawacantay marka intaas wacyigelin idiin noqoto iyo waxaan ku qaataan insha Allah bismillaahi raxmaani raxiim magacay waa Roodo Bahadaadan waxaan ka mid ahay dhalinyarta laga soo celiyay dalka Algeria waan ku faraxsanahay runtii waddankayga inaan ku soo laabto ilaahay baa mahad iska leh marka ku xigta dowladda Soomaaliya oo ii suurtagelisay inaan waddankayga ku soo laabto waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaan mas'uuliyiinta iyo madaxweynahayga marka dhalinyarta waxa kula dardaarmaya dhalinyarta iga dambaysa runtii inay tahriib hawaysan dalkiina waxayna dhaamo ma lahan dhibaato badan waa soo aragnay sinac badan runtii mukhalasiintu marka hore wax been ayaa ku sheegayaan waxay ku leeyihiin muddo yar ayaa lagu geynayaa laakiin marka xaggaa tagto ayaa ogaanaysaa wax walba marka waxaan leeyahay dhalinyaro tahriib ha hawaysanina marka waa ina salaamaya dhammaan mas'uuliyiinta nagu soo dhawaysa halkan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin